waxaan maqlaayay hadal aan Itoobiya aad ugu yaabay oo uu ku khiyaamaynayo farmaajo uu yiri midnimada Soomaaliya inay muqaddis tahay noo ogow uu yiri midnimada Soomaaliya marka ma wuxuu ilowsan yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya midnimada Soomaaliya kilka shaad ku jiro midnimada Soomaaliya kilka shaad baa ku jira oo NFD baa ku jirta oo anaga ku jira wuxuu mooday inuu Soomaaliland oo qolo ula jeedaa uu moodaya oo lama jeedo haddaanu labada iyadu isku biirana oo aanu ku biirna xamarna 77kii ninkii soo qaaday dagaalka ayaa u adeera ninkan ummadda kilka shaad degina waa reerkoodii baadayada waxaan u sheegayaa Itoobiya fursadaha hor yaacaya hor socda haday ka faa'iideysan weydo iyada khasaaro ku qabta